السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما قيرت يوتيوب سلامي عشان كان من تعكس بسيا سيدان أسمى لين cover DVD iyo DVD sidaan ugu sawir leen Photoshop CS6 marka cashadan waxa lagu talagalay dadka bilowga ee Photoshop cusub inay ka faa'iideystaan. marka aan bilowno Photoshop kaaga fur kadibna waad u jeedaa in DVD-gan marka u fiirisid in uu yahay mid gacan lagu soo bixiyay Photoshop CS6 Ahmed Shafee adigu waxa aratid ayaad ku qori kartaa iyo sida aratid ayaad wax u bedeli kartaa. marka sida loo sameeyaa sidaan u dham waxa sameyn kartaa oo kaliya ujeeda calaamadan inaan soo qaadnay background ka isticmaalnayo background YouTube inuu yahay kadib film new ayaa leedahay kadibna width-kii hay waxa ka dhigaysaa 14 resolution-kan waxa ka dhigaysaa 300 oo pixel waa kulligood meeshana background-kan white ayaa u dooranay kadibna okay ayaa leedahay kadibna dragging ku sameey ama double click si kadib okay dheh kadibna color-ka soo door paint back tool tag kadibna ku dhufo color-kii ayuu ku noqonayaa. waxaan sameynaynaa haddii rows-kaas ay ku muuqanin sidan ka yihiin waxa tagtaa view kadibna waxa dhahdaa rules soo door ama control R dheh kadibna haddii aan rabno inaan dhaxda cabirno ma cabiri karno say ku garanayna inaan cabirno dib ayaa nagu noqonay kadib waxaan leenahay edit free transform kadib waxa jeedaa calaamadda bartanka inay noo muuqanayso kadibna rows-ka isticmaal maxaa u isticmaalaysaa muuska ayaa saas u geynaysaa banaanka u bixinaysid mastarada dusheeda ayaad ka saaraysaa kadibna muuska waad ku qabanay adoo dragging ku sameynayso waxaad la aadaysaa dhinacii u rabtay kadibna waad ku sii deynay kadibna dragging aada mid dhinaca kale ku sameynay adana dhax bartanka ayuu ku taagan yahay kadibna aan jacket iska dhig free transform marka waa ka maaran hadir waxa tagaysaa toolska ee la dhahayo ellipse tool ayaad ku dhufanaysaa kadibna dhax bartankaas ayaad keli ku siinay marka adiga jeegan kuma saarno from center kuma saarno from center ka saaro kadibna meeshaas ku qortaa 120 mm kadibna meeshaas ku qortaa 120 mm kadibna hadada okay dheh marka hadda u jeedisi sababtoo background wuxuu ku yahay madow haddii aan kan iska xiro kana aan ka dhigo blue aan ka dhigo waxaad u jeedaa in uu ku soo baxayo calaamadii DVD-ga kadib mar labaad keli ku siiyo meeshan waxa mar labaad ka dhigtaa marka ku siinaysid waa inaad dhax bartankaas ku siisaa kadibna wax meesha laga baahinaa ka dhigtid 117 mm top dheh 117 mm dheh kadib waxa dhahdaa okay dheh kadibna color-ka ka bedelkan color-kii u rabtay ka dhig kadib marka color-ka u rabtid ka dhigtid haddana mar labaad ayaa dhaxda keli ku siinaysaa meeshaas waxa ka dhigaysaa 18 mm top ayaa leedahay 18 mm kadibna okay ayaa leedahay kadib double click ayaa siinaysaa white ayaa meeshaas ka dhiganaysaa ama adiga color-kii aad u rabtid kadib double click ayaan dhaxda ayaan click ku siinay haddana waxaan ka dhiganaa 8 mm inta ayaan haddana 8 mm kadib waxaan leeyahay okay ayaan leeyahay kadibna meeshaas waxaan ka dhiganayaa black. waxaad u jeedaa markiina soo dooranay calaamadii DVD-ga sameynay kadib waxaad tagaysaa ellipse kan labaad ayaa tagaysaa waxaad tagaysaa film menu replace ayaa tagaysaa replace marka tagtid waxa soo dooranaysaa sawirkii aad u rabtay ayaa double click siinaysaa kadibna waa la ekeysiinaysaa sawirkii marka la ekeysiisid kadibna unchecked ayaad ka dhigaysaa marka laba wado kaliya ayaad ku sameyn kartaa inaad right click dhahdid create mask dhahdid gudaha ayuu ku gelinayaa waxaad kale control z markan soo dhaho waxaad kale dhigi kartaa inta alt qabatid labada folder dhaxda tagtid calaamadaas ku soo baxaysa click ayaad ku siinay gudaha ayuu gelinayaa labadaas meel ayaad create mask aad ku sameyn kartaa marka DVD-ga hadda uu ku sameysan yahay waxa aad rabtid ayaad ku sameysan kartaa haddii aad u baahan tahay in aad ay nooc sameysatid color-kan kan waa ka bedeli kartaa meeshaan waxa ka dhigi kartaa haddii aratay white waa ka dhigi kartaa
waxaa ka dhigi kartaa madow qafiif oo kale ama gaduud oo kale nooca adiga markaas aad u rabtid ayaad ka dhiganaysaa. blue ayaan ka dhiganaa hadda meeshaan. kadib markaan sameynay waxaan sameynaynaa calaamadii ayaan tagaynaa. waxaan ka sameyn kartaa ay meel kale ayaad ka soo jari kartaa, dhib male. waxaan sameynaysaa dragging ayaan ku sameynaa meeshii aan ugu talagalay. akana meesha ugu talagalay ayaan geenayaa. okay ma soo qaadana malena dragging ku sameeyo kadibna la soo degsigaada adoo wadid. marka wuxuu sameeyay inuu hoos geeyo, marka kor ayaan u yara qaadayaa sidoo igu soo baxo calaamadda. kadibna waxaan leeyahay alt control t ayaan leeyahay filters forma. kadibna calaamadda aad ayaan xogaa yar u weyneynayaa. kadibna dragging ayaan ku sameynayaa meesha rab ayaan geenaa. kadib tagastiga ayaan soo dooranayaa. tagastiga markaan soo dooranayso waxay tahay tweedley new ayaan lahaa. kadibna waxaad ku qoraysaa meeshaas waxa adiga aad ugu talagashay ayaad ku qoraysaa Photoshop CS6. kadibna waxaad qabanaysaa controlka internet ayaad geenaysaa. kadib uncheck ayaad ka dhigaysaa. kadib waxaad tagaysaa right click ayaad ku leedahay blending option ayaad tagaysaa. kadib waxaad tagaysaa bevel and impulse. kadibna stroke ayaad tagaysaa. stroke markaad kili ku siisid meeshaas waxaad ka dhigaysaa 3. meeshaana waa inay ku ahaataa position outside. opacity-gana waa inay ku ahaataa 100%. haddii kale hadaa ka khafiifisid wuxuu noqonayaa qafiif. 100% waa inay ku ahaataa. kalarka nooca artid ayaad u dooran kartaa. haddii adiga aratay kalarkii aratay ayaad u dooran kartaa. marka stroke waa ujeedaa calaamadda banaanka waay. iska dhaaf tusaale ahaan haddan sidiisa waa u dhaafi kartaa ama blackgiisa waad ku soo celi kartaa sidii aratid. kadib okay ayaan leenahay. kadib tagastigaas waxaad ujeedaa inaad tagana effectiska bevel and impulse iyo stroke. kadib waxaan leenahay control G ayaan leenahay. duplicate aan ku sameynaynaa. kadibna move tool ayaan tegaynaa. hoos ayaan keenaynaa. double click ayaan siinaynaa. tagastiga waan bedelaynaa. markaan waxaan ku qoraynaa Axmed Shafee. kadibna ayadoo weynaysanaynaa. kadib adiga wixii aad markaas ugu talagashay ayaad ku qori kartaa. kadibna duplicate labaad ayaan sameynaa. kadibna move tool ayaan tagaa. double click ayaan siinayaa. tagastigan waa tira waxaana ka dhigaa YouTube video. kadibna double click ayaan siinaa. tagastiga ayaan aad u yareynayaa. kadibna waxaan ku aadinayaa hoostan. kadib waxaan leeyahay okay that's all of them. wixii aratid waad ku soo diri kartaa. haddii aratid shape tool ayaad tagi kartaa. waxyaabo badan aa u baahanta oo kale ayaad soo qaadan kartaa. hadda leerkan oo kale markaan soo qaato aan ku sameeyo kalarkan oo kale waxaan ka dhigayaa gudihiisa waxaan tagayaa bathka ayaan tagayaa. kalarkii waxaan leeyahay meeshaas u bedel selection tool u bedel layerka imo. kadibna paint package tool tag kalarka soo dooro meeshaan gaduud soo dooro. kadibna ku dhuf new layer. kadibna pam ku sii. kadibna waxaad leedahay control Z waxaad ujeedaa in aad kalar ka dhigtid. marka wixii aad markaas u baahanta oo kale adiga aad ku soo dardari kartaa. marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. wajazaakum allahu khayran.